waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay kala joogaan. Salaanka bacdi waxaan halkaan si gaar ah uga salaamayaa Mustafa Artist. Waa nin dhalinyaro oo Ilaahay haybad siiyay, talent siiyay. Qof kasta oo bini aadan oo dunida korkeeda saaran wuxuu leeyahay talent. Ama ha ahaado mid qarsoon talentigaasi uusan ogeyn oo asaga ku qarsoon, ama ha ahaado mid uu isku og yahay oo banaanka yaalla. shakhsiga aan idin la wadaagayo waxa la yiraahdaa Mustafa Artist. waa nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo hibadiisu tahay ama talentigiisu yahay artistku marka uu fara badan yahay, laakiin ninkan artistka uu samaynayo waa mid mucjisa oo digital ah, ma ahan artistkan naqaanay maaha. aniga waxay soo jiitay oo kalifay inaan raadiyo Mustafa Artist, waliba lambarkiisa raadiyo oo weydiiyo oo aan iraahdo warniyo aan suuraysano. waxay soo jiitay video uu ka sameeyay aniga iyo Saara oo naga sameeyay oo aad u qurux badan. waxa kalifay in aan arko videogiisa oo uu qac igu soo yiraahdo dad bay igu soo mishin gareeyay. waa taqaanaan dee qofku markuu muuqaal sameeyo, muuqaalkaas waxa uu ku saabsan yahay qofka uu ku saabsan yahay. dad waxaa jira asxaabtiisa oo ku mishin gareeyay war hebelow yani halkaas baa laga hadalhayaa. marka horta aad baad ugu mahadsan tahay Mustafa Artist, aad baad ugu mahadsan tahay in aad muuqaalkaas samayso oo aad bulshada Soomaaliyeed la wadaagto, anigana la igu soo taagareeyo. muuqaalkana aniga iyo Saara aan nooga wada hadlaysay. Soomaalidu qofka talentiga leh ka dhasha Soomaaliya iska daa taageerid ay taageeraan labada lugood bay ku dhigaan. inta uu yaqaan bay ka madoobeeyaan, ma yaqaanaan qofkan horay ha u socdo. waxaa jira caalamka dad talent leh, laakiin caalamku annaga waana dhaamaayo. qofka talentiga leh waxa weeye wayba xanaaneeyaano, waxa uu rabaysiyaan, waxay ka ilaaliyaan stresska iyo negativeka iyo waxyaabaha maskaxdiisa wareerinayo dhan bay ka ilaaliyaan, laakiin annagu kama ilaalino. waraysigan wuxuu dhex marayaa aniga iyo Mustafa Artist. waxaan rabaa ugu horreyn inaan ku weydiiyo Mustafa, xagee ku dhalatay, xagee ku soo barbaartay, ma la soo kortay hooyo aabe ehelka oo dhammaystiran? waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo hibadan artistka goormaad isku aragtay? ma adoo aad u yar oo nin dhalinyaro baad isku aragtay, ma adoo weyn oo nin weyna oo muqdaro wax kala garanayaad isku aragtay inaad hibadan leedahay? goormaad hibadan inaad leedahay aad ogaatay? ugu horeyn Omaro waa ku mahadsan tahay, waana ku faraxsanahay inaa iga qaadid waraysigan. waana ku faraxsanahay inaan channelka ka soo muuqdo. adiga iyo asxaabtaadaba waa idin wada salaamaya. salaan kadib, magacaygu waa Mustafa, waxaan ku dhashay magaalada Garowe. waxaan ku soo barbaaray isla magaaladan ku soo barbaaray. farshaxanka waxaan samayn jiray waagii hore oo aan yaraa oo dugsi hoose aan ahaa. wixii 2014 ka dambeeyay baan isku arkay hibadan farshaxanka inaan leeyahay. waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo, ma jiraa qof caana ama madaxweyne ama sheekh ama fanaan intaad muuqaal ka samaysay kula soo xiriiray oo ku soo wacay oo ku soo xiriiray oo ku bogaadiyay oo ku sheegay inaad talent leedahay oo dunida aad wax la qaybsan karto ama ku garab istaagay? ma jiraa? saaxiib, ma jiro qof caana oo ila soo xiriiray. adiga ugu dhow baan oran karaa. waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo han intee la eg baa kugu jira arrinkan artistka aad samaysay ee digitalka ee dunida aad la wadaagto? waxaa jira rag kale oo artistayaal ah oo qaabka aad wuxuu samayso u sameeyo oo caalamkaas kala jooga oo aan Soomaali ahayn, oo ayagu waxa weeye horumarka sameeyay. laakiin anagu maadaama aan Soomaali nahay, talent kasto aan leenahayna uu de Soomaaliya ku dhexdeeda ku egyahay oo uu Soomaaliya gudaheeda dhaafin. adigu han intee la eg baad leedahay ma inaad caalamka gaarto oo beesha caalamka oo dhan ay waxa weeye bandhig aad u qabato oo ay arkaan hibadaada, mise inaad Soomaaliya gudaheeda un ku ekaato? run ahaantii hankan farshaxanka ka leeyahay waa han aad u weyn. ilaahay idankiis Soomaali oo kaliya ma doonayo farshaxankaygu inuu ku ekaado, caalamkana inuu farshaxankaygu gaaro oo laga barto baan jeclahay, oo Soomaali magac weyn inaan u soo hoyiyo insha Allah. waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo wax caqabada oo aad kala kulantay talentigaaga ama ka hortaagan talentigaaga inuu bulaalo oo adduunka gaaro ma jiraa?
saaxiib caqabada ugu weyn oo aan isleeyahay maanta way ku haysataa waxaa weeye waa wadankii oo aan laga helayn qalab farshaxan oo dhammaystiran iyo caqabado kale oo fara badan oo wadanka yaala. waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo Mustafow, maxaad iska aaminsan tahay? maxaad soo malaynaysaa bulshada Soomaaliyeed inay adiga ka aaminsan tahay? saaxiib waxaan moodaa su-aashaas inay ku habboonayd maxaa ka aaminsan tahay xirfadaada, dadkuna maxay ka aaminsan yihiin xirfadaada. run ahaantii waxaan ka aaminsanahay xirfadayda inay tahay xirfad sarreysa. qofkii ama haddii aan u heli lahaa qalab dhammaystiranna inaan samayn lahaa wax qayrul macquula aan Soomaalida horey u arag. bulshaduna xaqiiqatan wax wanaagsan bay ka aaminsan tahay. bulshada Soomaaliyeed muddo 2 bilood baan anigu hadda social media ku jira oo aan ku soo biiray, dib uga soo laabtay, haddana hadda 100,000 iyo wax ka badan baan marayaa. maasha Allah, bulshada Soomaaliyeed garab fiican xagga waa ka. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Mustafow, intii aad ku jirtay soo bandhigidda hibadaada, talentigaaga, ma jirtaa cid ku caawisay? hadday doonto ha noqoto hay-ad, hadday noqoto madaxweyne Soomaaliyeed, hadday noqoto madaxweyne maamul goboleed, hadday cid ma jirtaa ku garab istaagtay oo caawimaad kuu soo bandhigtay? saaxiib ma jirto dowlad ama hay'ad ila soo xiriirtay. waxaan rabaa oo kale inaan ogaado, ma jirtaa caqabad hadda ku haysata oo ku hortaagan oo aad is dhihi lahayd wallaahi in laga caawiyo caqabadaas waad u bannaan lahayd si talentigaagu uu u hormaro, oo aad ka sugi lahayd ummadda Soomaaliyeed, madaxdaada, dalkaaga, dadkaaga? ma jirtaa wax ku hortaagan oo hadda ku gubaya oo talentigaaga hortaagan oo caqabad kugu ah oo aad is dhihi lahayd haddaad ka gudbi lahayd arrinkan waad bullaali lahayd, wax weynna way kuu soo bixi lahaayeen? caqabada ugu weyn oo aan isleeyahay maanta waa jeclaan lahayd in lagaa caawiyo waxaa weeye wadankii oo aan laga helayn qalab fiican aan u baahnaa, iyo wadankii oo jaanisiyada farshaxanka uu ku yaryahay. iskuul ma aaday artiska lagu barto si aad waxyaabo badan oo adiga kaa maqan oo dadka kale artistayaasha ama macallimiinta artiska dhiga maskaxdooda ku jira aad u faa'iideysato? ma aaday iskuul ama meelaha artiska lagu barto ma tagtay? haa saaxiib, wuu jiraa iskuul farshaxan oo aan aaday oo aan ku soo bartay bilowgii hore aan bilaabayay farshaxanka. waxaa la yiraahdaa Wozia, macallimadana waxaa la yiraahdaa magaceeda Leyla Xiis. magaalada hadda aad degan tahay ee aad joogto, ee aad ku soo barbaartay, ee aad ku soo kortay, meelaan ahayn ma tagtay oo Soomaaliya gudaheeda muuqaal ma ku soo samaysay, artist ma ku soo samaysay? Soomaaliya gudaheeda meel kamid ah ma aaday? waxyaabo aad ka hesho ma ku soo aragtay oo aad la yaabto mucjiso kugu noqda oo aad artist ka soo samayso? haa saaxiib, waa jirtaa meelo badan oo aan tegay oo aan jeclaan lahaa inaan soo sawiro oo ka soo sameeyo waxyaalihii aan la yaabay, laakiin wadankii ma lahan madxaf la dhigo waxyaalahaas. maxaad kula talinaysaa artistayaasha Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed ee hankoodu yahay inay noqdaan artist, yacni qof wax sawira ama digital ku sawira ama gacan ku sawira? adigu artistayaasha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee adigoo kala maxaad kula talinaysaa? waxaan kula talin lahaa dadka artistayaasha oo dhalinyarada sideedoo kale ah in hadafka ay ka leeyihiin farshaxanka ay weyneeyaan, oo ay farshaxanka hadaf weyn ka yeeshaan, oo xirfadooda horumariyaan, ay ku dadaalaan, oo kaliya Soomaaliya aysan isku koobin, ay caalamkana la tartamaan. ugu dambeyn maxaad ummadda Soomaaliyeed ka codsanaysaa? bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa ugu horeyn dantooda inay gartaan, wixii dantooda ana ay qabsadaan. hadda way isku jeedaan inay kala jeensadaan oo caalamka indhaha u qaybiyaan, dadkooda hal abuur kale ama hal door kalena inay garab qabtaan ilaa ay meel ka gaarsiinayaan. ugu dambeyn waa ku mahadsan tahay wareysiga quruxda badan aad iga qaaday. adiga iyo asxaabtaadaba waa idin salaamayaa mar labaad. waa anigoo ah Mustafa Artis.